السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada barkale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay. Qodobada barnaamijka saakay aan idinkugu hayo waxaa kamid noqon doona diyaaradii muslimiinta caalamka meelo kala duwan lagu baabi'iyay sanadihii ugu dambeysay ee Mareykanku lahaa B-52 oo la sheegay inay burburtay. muslimiin fara badan oo ku farxay arrinka halka murugo fara badan ay la soo diristay Mareykanka. haddaba sheeko la yaab leh oo arrinka laga qoray ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. Netanyahu iyo Trump arrintoodii oo cirka ku shareeran weli. haddaba yaa adkaan doona labadooda? tafaasiil baan idinkaga hayaa. waxaa sidoo kale aan idiinsoo gudbin doonaa Iiraan oo durbaba bilowday maraakiibteeda shidaalka qaadaysay inay iska socdaan oo ay iska maraan Hormuz iyadoo kuwii Mareykanka ay arkayaan ayaa la iska gudbaya. haddaba barnaamijka waxaanu ku haynaa qodobo aad u xiiso badan saakay. ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa xiisadii ka dhex taagnayd Netanyahu iyo Trump oo cirka ku shareeran weli. Netanyahu wuxuu diidan yahay in la soo geliyo heshiiska Trump iyo Iiraan ay gaareen. Trumpna wuxuu sheegay in heshiiska ay ku jirto Lubnaan. haddaba shir jaraa'id ayuu xalay qabtay ninkii Netanyahu ahaa. marka hore horta wuxuu yidhi musharaxaan ahay doorashada soo socota Israa'iil. midda labaad wuxuu yidhi dagaalka Iiraan aan galnay wuxuu Israa'iil ka badbaadiyey kulaha khatar weyn oo ku soo socotay. nuclear hadday heli lahayd Iiraan waa noo dhammaaleed. marka hadda waa laga takhalusay nuclearkaas ma samaysanayso. haye Gazana wax cabsi oo aan ka qabno maanta ma jirto. haye Suuriya iyo Lubnaanna meelaan uga soconno male waa ku jiraynaa meelkaasaan joogaynaa. Trump heshiis kastaa soo qaato yidhi waa la yaabay. ninkii Trump iyo Netanyahu waa la isku dhegayeen. haddaba markaan idintusoo wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray. Netanyahu wuxuu sheegay inaanu mar walba waafaqsanayn waxa uu samaynayo Trump. Israa'iil kama baxayso ayuu yidhi, Lubnaan kama bixi doonto oo halkaas waanu joogi doonaa. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xalay oo Talaado soo galaysay waxa uu sheegay in mararka qaar aanay iswaafaqsanayn isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. wuxuuna sheegay inaanu marnaba aqbali doonin heshiiskan hadda la gaaray ee ku saabsan Mareykanka iyo Tehran dhex maray kaasoo lagu soo dhammaynayo dagaalada ka jira bariga dhexe, gaar ahaan midka Iiraan iyo Mareykanka iyo midka Lubnaan. waxaana uu sheegay Lubnaan inaanay marnaba iyagu ka bixi doonin oo ay joogi doonaan. ninka warkiisu waa cadyahay. ninka Trumpna wuxuu leeyahay heshiiskaas waa socodsiinaynaa, waa meel marinaynaa. Iiraanna waxay leedahay aan kaa aragno, isheeda aan aragno heshiiskan inaad maaragtay meel marin kartid iyo in kale. koray ka fiirsanaysaa barka Iiraan. waxay leedahay heshiiskan inaad Netanyahu oo ku qasbi karto iyo in kale bal aan aragno. waxaa ugu dambeeyay xalay oo arrinkaa ka hadlayay madaxweynaha Iiraan Mascuud Pezeshkian ninka la leeyahay. shalay galabna waxaa ka sii hadlay Qaalibaaf iyo rag kale oo yiraahdeen arrinkan odagaan ma ka dhabayn karaa, Israa'iil meel ma saari karaa. hadduusan saari karayuusan la goyninay leeyihiin. marka hawshaasu labadan oday way u tuura tahay. meelay ku dhammaato marka waa arki doonaa. qodobka halkaasaan kaga gudbaynaa. qodobka labaad ee aadka muhiimka u ah barnaamijka saakay aanu kusoo qaadanayno wuxuu yahay Mareykanku xalay saq dhexe waxay ku dhawaaqeen inay burburtay diyaarad la yiraahdo B-52. waxay ka mid tahay diyaaradaha waaweyn ee Mareykanka ee bambooyinka waaweyn qaada. xataa waxay qaadi kartaa hubka nuclearka. kontameeyadii diyaarada la sameeyo waaye B-52. wadamo islaam ahay baabi'iyeen. waxaa ugu dambeeyaa lagu leeyahay Iiraan ayay ka adeegatay oo bambooyinku garaacday intii dagaalku u socdo. diyaaradii way kacday wax yar kadibna way burburtay. 8 khubara oo saarneed oo duuliyaasheed iyo raggii kombiyuutarada ahaa khalaas way ku gubteen.
wax loogu tagay male ilaa in yaroo burbura maana inta kale way basbeeshaa lagu leeyahay muslimiin fara badan oo baraha bulshada ka falceliyay waxay leeyihiin in kaaruha ku dhacdo diyaaraddaas afghanistan iyo ciraaq iyo iiraan meel aysan muslim joogo aysan tugta ka soo gelin male marka laga reebo hal wadan oo dagaalkii vietnam waddankaasi ka qayb qaadatay inta kale diyaaradani ay bambooyinka ku garaacaysay waxay ahaayeen dalal oo islaama oo dad muslimiina ayaa lagu baabiyaa lagu leeyahay diyaaraddaas yaabkaasa jira haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyey wargeyska la yidhaahdo sharqul awsad ayaa qoray saakay wuxuu leeyahay ciidamada maraykanku waxay caddeeyeen xalay in ay markaa dhinteen 8 qof diyaaradii weyneyd markii ay burburtay B-52 diyaaradaasu waxay ku burburtay California meesha la yiraahdo ee dalka Mareykanka ciidamada Mareykanka oo warbixin soo saaray waxay ku cadeeyeen in diyaaradaasi ay la socdeen B-52 la yiraahdo 8 qof oo halka markaa ay ku dhinteen waxayna burburtay shalay California ayay ku dhacday wax yar kadib markii ay kacday la leeyahay oo markaa ay duushay ayay markaa dhulka ku soo dhacday baaritaan ayaa socda sababta laakiin wakaalada wararka ee Faransiiska ayaa sheegtay in diyaaradaasi nooceedu uu ahaa B-52 Stratfortis mid la yiraahdo waxay qaadaa hubka waxaana iska lahaa ciidamada Mareykanka bambooyinka ayay tuurtaa iyo gantaalaha waxay sidoo kale xambaari kartaa nuclearka marka la rabo in lagu weeraro meel airportka la yiraahdo Edwarder ayay ka duushay saacadu markii ahayd 11:20 xilliga wadanka Mareykanka California xilligeeda waxaana la sheegay wax yar kadib inay halkaa ku dhacday oo ay ku burburtay haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan diyaaradanu inay markaa ay ahayd diyaarad ay dagaalo ku soo galeen Mareykanka haddaba warbixinta wargeyskan sharqul awsad way sii socotay waxa leeyahay diyaaradan waxa la sheegay in ay markaa si xun u burburtay waxaana la sheegay diyaaradan inay kamid ahayd kuwii ka dagaalamay Vietnam iyo khaliijka dagaalkii Ciraaq Afghanistan iyo markii ugu dambeysay Iran ayay ka dagaalantaa leeyahay way marka waa arkaysaa marka waxa farxad ka muuqda waliba dadka ka soo jeeda Afghanistan iyo Ciraaq iyo Iran iyo waxa dadkii lagu laayay baasho oo babooyinka lagu garaacay marka diyaaraddu marka sidaas ayay ku dhacdaa leeyahay oo ay ku burburtay marka waa arki doonaa kullay warkaasu isaguna wararka cusub oo kamid yahay warbixinta kale Iran waxay tiri marag biyoodka Hormuz waxaan fasaxayaa maraakiibta jimcaha markay heshiiska la gaaro koor kaliya ku faysteen ay tiri maxay leedahay maraakiibteedo kulli shidaalka kuwii way gudbeen ilaa xalay ilaa saakay way socdaan kuwii ka xadhimnaa oo dhan Mareykanku jidka u taagnaa kulligood waa maraya way fiirinaysaa Mareykanka inuu wax samaynayo iyo in kale ayay fiirinaysaa haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay maraakiibta Iran waxaa la sheegay inay ka gudbeen goobtii go'doominta ciidamada badda Mareykanku ay ku hayeen iyadoo wax dhibaato maraakiibtaas aan loo geysanin haddaba Press TV television-ka la yiraahdo Iran laga leeyahay ayaa sheegay 3 kamid ah maraakiibtaasi oo markaa halkaa inay ka gudbeen oo kuwii waaweynaa ahaa shidaalka waday iyo kuwa kale badeecado waday inay halkaa ka gudbeen iyadoo markaa Mareykankana aanay wax su'aalaha weydiinin maraakiibtaas oo sidee tahay halkaa isaga kala gooshayeen way marka wixii kale ay rabtayna way fasaxaysay oo macnaha iyadu ay ugu tala gashay laakiin meesha waxa la furaa tiri jimcaha maraakiib kale fasaxday waxa ku jiray markab weyn oo gaas waday oo maartay qadar ka soo qaaday iyo waxyaabaha soo dhan ayaa ku jiray iyaguna halkaas ay marsiiyeen way qodobka isaguna halkaas ay kaga gudbaynaa wararka kale ee saakay cusub waxa ka mid ah ninkii madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Vance
ayaa wuxuu sheegay in kooxdii baarayaasha hay-adda atomiga qaramada midoobay u qaabilsan inay marka heshiiska la gaaro ay tegi doonaan Iran si ay ula socdaan nuclearka ay ballan qaada Iran inaysan samaysanaynin waxaasoo dhan inay la socdaan uraniumkeeda waxa ay ku samaynayso marka arrinkaas waxa loo baahan yahay Iran inay siday tahay ula shaqeyso hay-addaas marka hay-addaas hore isaga soo ceelisay Iran qolo basaasiina waa yiraahdeen Mareykanka u shaqeeyaan marka hadda maadaama heshiiska uu ku jiro in maaragtay hub aysan samaysan doonin Iran ayuu wuxuu leeyahay waa u diraynaa Iran waxa la soo dirtid ma xubeen heshiiska horta hirgeli Israa'iil wali waxay dhibaato ku haysaa Lubnaan ka saar Netanyahu waa tuulaha meelaan uga socdo bale haddaba markaa radito soo wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray Vance oo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka wuxuu sheegay inay ku laaban doonaan kooxihii wax fatashayay ama baarayaashii nuclearka Iran inay halkaa ku laaban doonaan sida heshiiska uu qabo Vance wuxuu sheegay kooxahan inay ku noqon doonaan Iran shuruudaha heshiiska ay ka mid tahay lagu dhameynayo dagaalka oo heshiiska lagu galay sida uu sheegayo uraniumka ogaanayaan inta hub noqon karta inta aan noqon karin kuwa nabadgelyo loo isticmaali karo inta loo isticmaali karin sidaas uu ku leeyahay marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa warbixinada saakay saaran caalamka waa tahay waayahay mar kale ayaynu isku soo noqonnay waxaynu ku jirnaa barnaamijkeenii ugu horreeyay maanta oo ah maalinimo talaada haddaba qaybaha ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa akhbaaraadka cusub ee soo kordhay telefishinka Mareykanka ee la yiraahdo Fox News ayaa wuxuu soo xiganayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Vance ninka la leeyahay wuxuu yiri heshiiska Iran lala galay heshiis noocee waay dadkii Mareykanka iyo kulli siyaasiyiintii waxay leeyihiin heshiis waay leeyahay Iran aysan sharaxayn waxa qodobada rasmiga ay yihiin oo lagu heshiiyay adikuna aynan sharaxayn maxay marka wuxuu yiri hadda uu ka sheegay hadeer telefishinka Fox News wuxuu leeyahay Trump waa soo bandhigi doona jimcaha ka hor maalinta jimcaha heshiiska la saxeexayo koor ayuu soo bandhigi doonaa qodobada iyaga iyo Iran ay ku heshiiyeen adduunka loo soo gudbin doonaa marka waa arki doonaa qodobadaas adduunka dhan way isweydiinayaan annaga xataa way isweydiinayna Soomaa maxaa lagu heshiiyay intaan guud maahane qodobada detailska rasmiga Iran ay ogolaato lagu heshiiyay oo Mareykanka ayagu ay ku heshiiyeen la leeyahay uu Netanyahu ka qaylinayo waan arki doonaa marka wuxuu leeyahay ninkan madaxweyne ku-xigeenka jimcaha ka hor intaan heshiiska la saxeexin ayuu soo bandhigi doonaa ninka la yiraahdo Donald Trump marka warkaas ayaa isaguna cusub oo soo kordhay barnaamijkaygii ugu horreeyay maanta talaada waa naga inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo iyo barnaamijyo kale like garay oo share garay barnaamijka haddaad ku cusub tahay channelkana subscribe ka ilooban YouTube-ka Facebook-na follow garayso si aad barnaamijyadan muhiimka ula socoto inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo